السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada Hirkaab Academy halkaasoo ka baranaysaan graphic design web design iyo web development waxaan soo wadnay projectyo web development ku saabsan HTML CSS JavaScript iyo sidoo kale main stage hadda waxaan isla fiirinaynaa gaar ahaan qaybta graphic designka qaybta logooyinka marka waxaan isla fiirinaynaa inaan sameyno logooyin insha Allah ilaa dhowr ah marka qaybta comment waxaad kusoo qori kartaa loogada aad jeclaan lahayd inaan soo sameyno marka waxaan ku bilaabeynaa MD logo MD aan ku bilaabeynaa marka versionka koowaad qaabkan uu noqon doonaa waxaan isticmaalaynaa ilaa 3 version aan sameynaynaa inkastoo labada version u horeeyo isku eg yihiin marka 3 version aan sameynaynaa okay so versionka labaad wuxuu noqon doonaa versionkan camal version saddexaadna waa isla versionkii hore oo markaa gradient colorka la bedelay marka labadan version aan sameynaynaa wuxuuna ku saabsan yahay logo markaasi ah MD okay marka MD-daas ayaan rabnaa markaa inaan aragno qaabka loo sameynayo markii ugu horeysa waxaa soo furanaysaa file cusub haddaad doonaysa dabcan course oo dhammaystiran oo Adobe Illustrator course bilow ilaa dhammaad waxaad ka helaysaa linkii hoose waxaa jira markaa group arday WhatsApp oo markii waliba markaa caawinaad toos ah ay helaysid graphic design-ka iyo sidoo kale labada qaybood kale oo design-ka web development-iba markaan bilaawno marka projectyadan insha Allah ka faa'iideysta ilaa dhowr logo aynu sameynaynaa kolkan horena waxaan soo sameynay 3 logo marka waxaan soo dhigi doonaa linkii hoose ayaan soo dhigi doonaa okay waxaan dhehna file kadib waxaan sameyn doonaa I think isla meeshaan ku sameysanaa marka adi ahaan waxaan sameysanaysaa file cusub markii horeysa marka aan ka sameyno so actually waxaan isticmaalaynaa fonti muhiim ah oo adina u baahantay inaad soo install garaysatid fontigaas muhiim waa because logada dhan waxaan u fududeynaya inaan sameyno waxaa weeyaan fontigaas okay so waxaan sameyn doonaa fontigaas ayaan isticmaali doonaa marka waxaan dhihi doonaa T text tool waaye qoraalka noqon doonaa kadib halkaan kale ku siisanaynaa kadib marka xarafka marka inta waxa weeyaan marka laga hadlayo mid koowaad waxaan ku sameynaynaa shapes balse d-da sameynaa inta waxaan ku sameynaynaa shapes okay so fontiga isticmaalayo waxaa loo yaqaanaa designer okay fontigaas marka muhiim waaye waxaad ka soo dejinaysaa default website loo yaqaano so designer fontigaana soo dejinaysaa so marka d-da qaabkaana u qoraysaa so d-da marka saa u qorto d-da waxaa ka dhigtaa marka 400 cabir ahaan waxaa ka dhigaysaa 400 weynaanaya dabcan intaa buu noqon doonaa marka intaa noqdo marka empty sida u sameynaa marka empty waxaan isticmaalaynaa shapes ayaan isticmaalaynaa so marka don't worry shapeska qaabka isticmaalayna isku fududahay cabiro macquulaan isticmaalaynaa so easily marka la soco insha Allah so waxaan sameynaysaa shapes soo qaado so inta badan waxaa la sameeyay shapeska waa la fududeeyaa laakiin qaabkan waa qaab xodhoor dedicated ah oo aan u sameynayno qaab markaas aan ugu talagalnay so marka isla socono marka waxaan sameynaysaa shape inta soo dhig oo m ahaan ka wadnaa so cabirada marka anaa isheeda muhiim ah cabirada inaad ka warweysid marka qayb properties ku dhufo oo qaybtaas ah kadib marka cabirka width waxaa ka dhigtaa 35 ama 33 ama 34 cabirka height waxaa ka dhigaysaa marka cabirka wuxuu la mid noqonayaa kan oo kale kala barkiisa noqonaysaa ujeeda 108 ka dhiganaysaa okay marka labadooda isla dooro align-ka marka waxaa dhigaysaa align-ka halkaas ku dhufo so bottom aa dhigaysaa align item bottom okay qaybta hoose inay markaa iskala simnaan okay so halka sar koowaad waa sameynay oo emta dhinacan ah ka ujeedaana filaa so qaybta waa sameynay qaybaha kale marka way iska fududiin so haddaa kana soo qaado si markaas iskula aragno okay so for the first time waxaa sameynay like sorry zoom as well sorry okay for the first time waxaa sameynay likeas so like markaa sameynay kadib waxaan sameynaynaa lineka waxaa kubiyeynaynaa isla asoo kale waxaa weeyaan mid kale kubiyeynaynaa halkaan dhiganaa inta waxaa waaye xarafka waxaa waaye m ahaana jarabnaa so qaybta dhexena waa iska fudud oo waxaa sameynaynaa in aan markaa wareejino inaka markaa degree isticmaalina okay so it's so easy marka aad u fudud la soco waxaan leenahay inta usoo jiideynaa kadib waa wareejinaynaa so 50 degree aa wareejinaysaa
shift haddaa la qabto 45 waa kadib 5 ku dar oo 50 degree wareeji okay so intaad ku aadinaysaa qaybta marka waa jari doonaa don't worry qaybta marka waa jareynaa so wixii oo markaasi oo banaanka aad waa la jarayaa so waxaa sameynaysaa saan oo kale u wareeji so isla qaybtaan oo kale right click kadib waxaa dhahaysaa waxaa la transform marka waxaa la dhahaa reflect alla reflectors kadib waxaa sii dhihi doonaa copy al sii dhihi doonaa marka wuxuu sameynaa kii hadda samaysnaa mahana mid kale ayuu sameyn doonaa marka horizontal iyo vertical uu leeyahay marka qaybta u baahantaada marka hadda waxaa u baahana qaybta verticalka u baahanahay so qaybta soo joodi hore oo noo soo saaray marka qaybta waxaa dhehnaa copy kadib mid kale la samaysa ujeeda oo isla midkii ah so midkaa kale halkaana soo dhigaysa saano kale ayaa soo sameynaysaa okay so waxaa sameynaya marka janaa wax yar kor u qaadi doonaa si markaas jan aan asina markaas wax yar aan kor ugu qaado okay so it's a little bit confusion waaye marka waxaa sameyn kartaa inaad isticmaashid wax loo yaqaano paint toolka ama waxaa sameyn kartaa shapeska inaad la socotid haddii shapeski aad fahanto is okay haddaa fahmaysid dhib malaha waxyaalaha aan jaro waxaa kamid ah in yani qaab shapeska laisku dhex geliyo qaabka laiskula jarjaro waxyaalaha inaad ka fahantaan ayaa u muhiimsan right now cashirka haddaa fahmayso wax muhiim zaa'ida maaha balse waxaa muhiimadda hadda aan saarin waxaa waaye inaad fahantaan shapeskaas qaabka isku dhex galayaan iyo waxyaalahaas oo marka idhayso qaabka u wado insha allah waa fahmi doontaa okay so hadda marka shapeska qaabkaas aan isku kala saaran soba so m ahaan uu soo dhawadahay is very nice balse waxa weeyaan aad isku dul saaran yihiin marka midnida u yareynaysa marka kanoo kale hadda ilaa inta camaraaro inuu ku ekaado meeshaas isimaya muhiim baa meesha ku ekaana inaa isla meesha aad geysid oo jarjarayna kan meeshaas rabnaa inuu ku ekaado is nice marka kana waxaa sameynaya kala u jiidaya so kanaa jari doonaa oo wixii banaan jira dhan waa bixin doonaa nice marka kana haweena marka waxaa intooda dooranayna marka muhiimada hadda cashirkan wuxuu noqon karaa qayb shapeska inaan xoog saarayno okay so shift amaan dhihi doonaa kadib waxaa bixin doonaa meelaha banaanka so meelaha banaan sida loo bixiyo alta lala qabtaa kadib waxaa dhihi doonaa alta kadib waa la daraajareeyaa sorry alta lala qabta waa la daraajareeyaa so alta lala qabta waa la daraajareeyaa oo lagu aadiyaa so marka wixii banaanka aaday o dhan waxaa uu daliidmayaa so hadduu qaliir noqdo dabcan waa weyneynayna I think qaliir camal inuu noqdo uu egahay but is okay ma ahaantan waa okay so shapeka waxaa wareejinaysaa ku dhahay 50 kadib waxaa weeyaan sidaana u jarjaraysaa saas ku dul saarna waxaa filaya inaad fahmaysaan wixii loo baahan yahay in la jaro tusaale hadda meeshaan oo kale maadaama loo baahan yahay in la jaro banaanka lasii geenaya macnaha lasii bixinaa okay hoos ma loo soo qorsanaya marka I hope inaad fahmaysaan aan filaya so intaas haddaa samayso runaantii waa samayn kartaa hadhowna wax walba u baahan tahay ama shape walba u baahan tahay in aad samaysato waa samaysan karaysaa waana arrin very important ah okay so intaa markaa waa isku dejinaynaa intaan isku dejinaynaa ilaa iyo intaan isku dejinaynaa so qaybtan kale marka ha ku dejinin I think waxaa waa space aa siina xitaa waan kala fujinay okay qaybtan kale marka waa kana qaybtan ka hadlaa so hadduu group noqdo aan group adhaysaa hadduusan group noqon is very nice so hadda group ma noqonin marka waxaa sameynaa kanaa soo sikinaya okay anuu halkan ku aadinayo kadibna saan uu soo sikinayo xer so meeshaas space yaraasi I think waxaa filaya inaa fahmaysaa okay meeshaas ku xalinaynaa meeshaas ku xalino iska fududahay just waxaa waaye oo soo sikinaynaa sida loo soo sikinaa waaba xarafka caadi waaye waxaa sameynaysaa right click create outline adhaysaa logooyinkii horena oo kusoo sharxay marka linkigaas soo dhigi doona insha allah logooyinka haddii aan soo dhigina waxaa ka raadinaysaa dabcan qaybta youtube-keena okay so let's see waxaa sameynay shape aa ka dhidi so xogo yar xitaa intaa usoo sikinaa inta dhibana anaga caadi usoo daraajareynayno waxaa isticmaalaysaa directors toolka qaybtaas sare u yaalaa soo dooro kadib labada dhinaca u baahan taha loo isticmaalaa si inta badan marka waa imaanaysaa intaa kale ku siinaysaa sidoo kale intaa kale ku siiyey shift yaa la qabanaa maadaama laba meel aan rabo
haddii meel kale jelib ku siiyo meesha haddaaya ka bixi doonaa marka waa soo sikinaa falaaraha isticmaalaya falaarta caadiga ee keyboardkaada kusoo siki insha allah haddaa rabti inuu boobsiyina shiftiyaa la qaban kartaa okay waa yara ilaa anoo dhamaystiraha soo xasuusta marka shiftiyaa la qaban kartaa haddii haddaa rabti inaa boobsiyo marka meeshaan xogo yar waa soo sikinaa isina qaybta hoose ka hadlaa inta jelib ku siiy kadib shifti la qabo jelib ku siiy I think waa soo sikinaa rajeyna mal kolkii hore aan kolkii hore yeah waa soo sikinay inkastoo space fiican xitaa weli uu leeyahay balse it's very nice space yaraa soo siinayna okay let's see marka okay very nice laakiin hal qayb ilaawnay oo ah qaybta sare inkastoo xitaa sidaan ku qaadan karno balse waxaa ilaawnay qaybta sare in lasoo laabayay oo markaas la rabo inaa space fiicanaa siino okay so marka laba version aa kaldhidana oo versionkaas sidaan ay ahaado soo gudbiyeysanaa maybe it's another idea so waa ka faa'iidaysan kartaa asina so it's very nice waxba kama khaldana asina wuu saxan yahay balse sidee usoo celin lahaa sidee usoo laabi karaa bas shafuuda sidaa usoo laabtid just waxaa weyneyn kartaa d-da number one saas samayn kartaa number two-na mtaa soo yareyn kartaa labadaba so labadaba samayn kartaa so easyla marka d-da weyneynayna waxaa yar xitaa mtana soo yareynayna labadaba sameynaynaa let's see mtana waxyala soo yareynayna okay nice so waxaa loo baahnaa in meesha lasoo laabo soo maha so we'll do it waa sameynaynaa meesha marka qaabka loo soo laabo ee paint tool isticmaalaysaa is very easy marka kolka horena idin sheeday paint toolka haddaa isticmaalaysa marka very nice waa so qaybta marka waa jaraa wixii banaanka aaday ama waa soo celinaa sida hadda horugii ayaan soo celinaa qaybta yani banaanka xogo yar aaday marka direct select tool kusoo dhufo kadib waxaad ku dhufanaysaa labada dhinac okay so dhinacan iyo dhinacan ku dhufanaysaa iyo dhinaca kale so marka shift la qabo saa usoo sika okay it's very nice marka muhiim waa ina waxyaalaha yar aan fahansantahay so paint tool ku dhufo marka qaabka u sameynaysid haddii xogo yar confusion u noqdo paint tool ahaana ka hadlaa kan le soo qaado xitaa kan haddeertan soo qaado kadib wareeji lebis kan le wareeji wareega marka shift la qabo haddii kale wareega ku adkaana inaa straight aa ka dhigtid mid toosan inaa ka dhigtid okay inta le ku aadi easily sidaas u aadinaysaa kadib markaa ku aadisid reflect garey markaa laakiin aan yareeno waayo waa yareynayna horta hore okay I'm sorry haddaa yareeno xogo yar kana baxayo in markaasi uu yeesto qolooc horta hore aan reflect ku sameynaynaa wareejinaynaa reflect hadda reflect fiiri waxaa weeye inaa intuu wareejiyay la rabay wuu dhacay marka waxaan dhihi doonaa okay copy ma dhihi dooni marka waa jaraya maadaama aan rabo half yar maadaama aan u baahanahay waxaa sameynaa shapeka la soo qaadanaa inta aan rabo inaan jara highlight gareynaa oo shapekaas saari doonaa hadda laan yar ubaa u baahanahay I think inta u jeedaa balse waa fiirinaynaa shift m waa jaraynaa aan yareyna horta hore okay inta u jeedaa samee dhinac hadda aan kasoo jeedinaynay okay let's see marka qaabka uu samaysan yahay so right click dhinac hadda ku celinaynaa okay so it's very nice marka intaas ku sameynaa qaybta kale so laba nooc ba noqday laakiin markii hore hal nooc camal ayuu ahaa so intaa waa marka shapeska iyo qaabka la isku xirxirayo haddaa fahantay wax badanaan kuu suurageli doono insha allah waxaan filayaa wax uun ka faa'iideen loojadan tanjalada marka waa arki doonaa tanjalada ka fududahay waana loojada ugu fudud aynu sameynayno inta markaas ku jirno qaybteen labaad ee looja sameynta koro mar hore waxaa hore usoo sameynay ilaa dhowr loojo marka hadda loojooyinka marka qayb labaad waa marka colorsa siisana colorska marka number one ka bilaawi doonaa kan I think kaasa ka bilaawi doona inkastoo kolka horaan ka bilaawin balse wax sameynaa
inaan color kasta bilaabo kana waxaan sameynayaa kan dhexe color siisan doonaa okay so colorka marka hadhow adiga waxaa waa qaabka aad u jeceshahay oo logada usoo muuqato as leedahay this is the best ayaa u siinaysaa muhiima in loo dhaho midkaasi laakiin inaa labada color aa haysatid aad isku waxaysid waa muhiim oo labada color ay noqdaan laba color aad kala siisay waxyaalaha ay haysatid okay marka intaas ku sameeyaa waxaa markaas hadafkan uu ahaa inaan logo qaadano logadaas oo ah md gaar ahaan aan ku faano shapeska gaar ahaan logada waxaan filayaa inaa insha allah samayn doontaan logooyin kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu